habeenada kamida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ummul Aisha radiyallahu anha aqalkeedu nabigu jiifay markaasuu nabigu ku yiri Aisha aawa ima iska kaydeyn ilaahay han caabude markaa bay ku tirahay iska cibaadeyso inna nabigu intuu saraka aybu tahaara qaatay oo qubaysadana uu weysaystay salaadu nabigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam salaadii nabigu aad u dheereeyay lana Aisha radiyallahu anha waxay tiri waan gamay in yar kadib baan soo kacay aqalkii baan taabtay agteydii nabigu ma jiifo waan eegay ma taagna nabigu ma joogo meesha waxay gala dareen oo waxaan isiri kulay nabigu reerihiisa kale caawa u guuro uu reerihiisa kale u tagay markaas ka soo daba baxay tiri waxaan arkay shakhsi qabuurihii baqay dul taagan oo ooyayo oo ducaynaya markaas aan gadaashiisa nabiga fadhiistay markaas aan fikiroon isla Allah Aisha waad ceebowday maanta adigana maseer baa ku soo kiciyay xilliga oo waxaad isiri nabigu reerihiisa kale reer kamidu kulay u tagay bal doondoon nabi maxamedna qabuuruhu dul taagan yahay oo ooyaya muntasif al-layl aya nabigu salaatu al-layl markuu tukaday qabuuraha intuu dul taagay nabigu qabuuraha ayuu dul joogsado aakhiradu nabigu xasuusanaya